sidee loo raadsadaa supplier fiican loogu raadsadaa suuqan Alibaba sidaan wada ognahay supplier badan ayaa maxayda suuqan Alibaba ku ganacsado waxaana laga yaabaa inay kugu adkaato supplier fiican si aad maxaydi oo aad ugu iibsan lahayd alaab tayo fiican leh muuqaalkan waxaan idinku tusi doonaa sida aad ku raadsan kartid supplier fiican oo ugu raadsan kartid suuqan Alibaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Bashiir Aadan. channelkan waxaan kusoo gudbiyaa arrimaha online-ka qaabka loogu shaqaysto. haddii aad danaynayso consider subscribe noo saar. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida supplier fiican loogu raadsado suuqan Alibaba. anigoo idin tusi doono kow qaab fudud oo supplierada ay kugula soo xiriiri karaan kulligood. sidoo kale waxaa idin tusi doonaa sida supplierada laisaga hubiyo oo maxayda loo raadsado supplier fiican anigoo stepya aan idinku tusi doono. marka koowaad waxaad u baahan tahay barnaamij la RFQ inaad Alibaba u dirsatid. kadib markaad RFQ dirsatid, Alibaba wuxuu kuu soo diri doonaa productiga arabtay oo RFQ-da aad ka dirsatay supplierada gada oo idin productigaas ayuu maxayde codsigaada u dirayaa. kadibna supplieradaas ayaa adigu kula soo xiriiraya. adigu marka waxaa lagaa rabaa in aad supplier wanaagsan aad ka dooratid. waxaa laga yaabaa 10 ilaa 20 ka badan oo supplier ah inay kula soo xiriiraan. marka adigu waxaa lagaa rabaa inaad supplier wanaagsan aad ka dooratid. waxaan idin tusaale qaabkii aad isaga fiirin lahayd supplieradaasito. marka waxaan rabaa inaan idin tuso taleefanka shashadiisa maadaama dadka inta badan u badan yihiin telefoon. waa idinka tusi karaa qaabkaas laptop, laakiin waxaan jeclaystay inaan idinka tuso telefoon maadaama dadka inta badan ay isticmaalayaan telefoon. marka taleefanka shashadiisa ayaa meesha idin soo saaraya, la socdo. saaxiib yaal waad wada aragtaan suuqa Alibaba. markaad gashid applicationkiisa sidana uu kugu soo baxaya. halkan waa home page-kiisa. alaabaha nooc kasta ay taala aragtaan. marka waxaan rabaa inaan idin tuso qaabka lagu fiiriyo supplierada fiican. horta barnaamijka idin sheegaya oo ah RFQ oo ah inaad codsi u dirsatid Alibaba oo dhahdid alaabta nooca rabtid aad sheegaysaa, tirada intay tahay sheegaysaa aad ka rabtid. kadibna waxaa kula soo xiriiraya supplierada alaabahaas EB oo idin supplier fara badan ayaana kula soo xiriiraya. marka meeshaas waxaa la dhahaa RFQ. waa kana waa qaybta ugu horeysa. markaad soo gashid waxaa ku qoran request for quotation. meeshaas ayaa ku dhufanaysaa. waa kana waxaa la dhahay get quotes quickly with RFQ. alaabaha oydila lagu soo dhigay oo RFQ aad ka baxsan kartid. haddii aad rabtid halkaas ku qori kartaa submit qaybta ah. okay, meeshan waxaa lagaa rabaa product name, alaabta aad rabtid magaceeda inaad meesha ku qortid. hadda tusaale kale men's shoes oo kale halkaas ku qoraya. waxaan ku qoraa kale inta xaba arab oo kale I need 100 pairs of men's shoes. waxaan u baahnaa kala leeyahay 100 xaba oo kala raga ah. markaad badan arabtid RFQ dirsatid waxaan kula talinayaa markasta inaad dirsatid alaab badan iman kale soo tira supplierada laga walano. hadaa yani waxa baaraba 10 xabaara waxaan ku xaramaar waqti isma kala lumay. laakiin hadaa leedahay 100 xabi ka badan raba 1000 xabaara 2000 xabaara dhadid si degdeg ah kula socda. hada fiiri 100 xab waa yiri ku xada shan xabaara roodaha. marka hadaas marka si degdeg ah inay igu soo hadlaan. meeshan ku qor kasi qor kartaa quantity 500 kala quantity. marka
sawirkan haddii aad sawirka sida alaabta aragtid tusaale kabaha aragtid noocooda oo kala sawir arkaysaa meeshaas gelinaysaa qaybta attachmentiga ku dhufanaysaa kadibna wuxuu ku geenayaa sawirada galeriga telefonkaada album baa leedahay kadibna sawirada telefonkaada ku geenayaa select album baa leedahay gallery ku dhufanaysaa kadib sawirada soo dooranaysaa ani hadda marabna sawir geliy laakiin main shoes qoray kadib waxay la soo hadlaysaa supplierada iibiyo kabaha ragga ayuu nooc kasta aadan supplierada iibiyo idil ayaa la soo hadlay marka submit now ayaa leedahay okay hadda waa submit gareeyay waan dirsaday haddii cabaar kadib aan sugo waxaa laga yaabaa inay soo dhacaan marka aad joogtid homeka waxaad ku dhufanaysaa my Alibaba ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaad tagaysaa inquiry stepta ku oran tahay kadibna kusoo baxaysaa hadda kuwan aan hadda dirsaday shoeska waxaa laga yaabaa inay bilo kala soo jawaabaan laakiin hadda kuwan tusaale ila soo hadlo idil aragtid kuwan idil fiirada oo supplier fara badan waa kuwa aan horay quotation ugu dirsaday telefonada celiska ah aan ugu dirsaday quotation waa kuwa kambariyada waxay la soo xiriiray supplier fara badan raanta waxa la tirin kara magacyadii ka badan yihiin marka kan ayaa rabaa inaad tusaale idinku tuso maadaama hadda kuwaas aysan waqti xaadirkan aysan iisoo jawaabi karin laakiin yacni waa isku mid qaabkaas markaa usoo dirsadid meesha inquiryska aysan kugu soo galayaan ayagoo fara badan mid kasta kula soo hadlaya kuleeyahay RFQ-da arkay alaabtaas waa gadnaa tusaale hadda midkaan aan kaa tusaaya midka ugu horeeya wuxuu dhahay thank you for your inquiry please share us which phone model do you need and how many pieces you want waxaan aragnay inquirygaada kadib waxaan u baahanayaa telefonka noocyada aragtid iyo inta piece aragtid marka haddii aan rabo marka inaan ogaado supplierkan marfailkooda inaan taga aan rabo oon eega yani inta muddo ay kusoo jireen suuqan oon rabo inaan eego waxaan rabaa kambaniga marka qofkan oo kale supplierkan oo kale inaan marfailkooda oo aan eego qaabka loo eego ayaan rabaa marka inay tusaale yihiin supplier la isku halleyn kara in kala stepsidan ayaan maraysaa si fiican u fiiri stepsida aan maraysa waxay tahay kow waxaa lagaaga baahan yahay in supplierkaasi inta muddo sano uu kusoo jiray suuqa Alibaba inaad eegtid tusaale hadduu qofkan kusoo jiray hal sano kale waxaan ku leeyahay yani ma hubo laakiin waxaa isku hallaynan adig laakiin hadduu 3 sano iyo ka badan uu kusoo jiray waxaa waaya supplier fiican oo maxayde isku halleyn karo hadda marka stepskooda inaadina kadib waxaan tagaynaa profilkiisa waxaan maxayde ku dhufanaysaa qaybtaas company ku qoran tahay waxaan idin yiri hal sanad uu ku jiro kale iska daaya laakiin hadduu 3 sano ka badan ku jiray yes hada already kan ujeedaan hal sano ayuu kusoo jiray suuqan 1 year meeshaas calaamadii racad 1 year ayaa ku qoran ka soco marka midka kale ayaan fiirinayno in la soo xiriiray tusaale marka koodka meeshaas ay ku qoran tahay view details ay leeyahay kadib halkaas aad ku dhufanaysaa kadib wuxuu geenayaa kambanigooda wow midkan waxay kusoo jireen 3 sano 3 years so waana helnay supplier kusoo jiray 3 sano stepka labaad ayaa aadinaa stepka labaad wuxuu yahay waxaan fiirinaynaa inta flow soo hastay waxsaas u muhiim ah laakiin flows waa muhiim yani dadka ku xirnaa supplierkan waa fiican tahay kun ka badan flows hadduu hasto ileen dadka badanaa markay ka adeegtaan dukaanka waxay jeceliin inay flows saaran si ay alaab kale marka ugu gataan hadduu yahay dukaan kasta waa fiican marka kun ka badan flows hadduu hasto supplierkas profilkiisa waxaa waaye waa supplier fiican waana aragtaan hadda supplierkan wuxuu haystaa 5,981 flows okay waxaan aadaynaa marka stepska saddexaad muxuu yahay waxaan fiirinaynaa oo ugu muhiimsanayaa review inta ayuu haystaa okay
qaybta profileka saas ugu dhufanaysaa kadibna waxaa fiirinaysaa reviews oo ah dadka alaabaa ka gatay qaabkii review u bixiyeen. ninkan wuxuu haystaa 4.8 reviews. reviewskiisa waxaa lagu fiiriyaa hadduu 4 ilaa 5 hadduu gaaro review fiican waaye. so marka reviewga uu haysta waa aragtaan reviewga haystaan 4.8 ayuu haystaa waa review fiican. supply serviceka adeega supplierka waa 4.9, shipping timekiisa 4.8 out of 5, where product quality 4.9 up to 5. so aragtaan waa review aad u fiican ayuu haystaa. so waa supplier aad u fiican ay dadku aad ugu kalsoon yihiin. okay so marka aan soo laabto midda kale oo loo baahan yahay inaad iska eegto ayaa ah response rate. response rate waxaa waaye qofka supplierka markaa la hadashid qaabku si dhaqsi leh customerka ugu soo jawaabo. customerka qaar markaa aad hadda la hadashid waxa laga yaabaa maalin kadib ama 2 maalin kadib ay kuu soo jawaabaan. marka adigana waxa laga yaabaa kurba ay kugu beerto. marka waxaa fiican supplier markasta kuu soo jawaabayo oo xaaladda aad kala soconaysid. so response rate-ka always waxaa fiican 50 hadduu ka sareeyo hadduu markasta ka sareeyo response ratekiisa 50% waxaa waaye waa uu fiican yahay markaas qofkaas. so qofkan arkaysin 70.4 response rate ayuu haystaa waa roon yahay. 90% ma laka waa 70.4 waa roon yahay. inta badan supplierada waxay haystaan inta u dhexeysa 70 ilaa 80 ilaa 90 meelaas ayay haystaan. content deliverygiisa waxaa haystaan 91.8. marka qofka supplierka noocan oo kale waa isku halayn karaa. xitaa wuxuu haystaa certification ayaa u dheer. okay stepka ugu dambeeya ayaan aadina hadda taas oo ah supplierku ma leeyahay trade assurance. waana qaybta ugu muhiimsan markaad supplier rabtid inaad fiirisid. trade assurance waxaa laga wadaa waa calaamad gabdhi ahaan ay siiyaan Alibaba dadka supplierada wax ku iibiyo suuqan Alibaba. trade assurance macnaheedu waxaa waaye lacagta qofka customerka ah laba mid ayuu samayn karaa. lacagta qayb ayuu diri karaa partial ayaa la dhahaa, qayb ayuu diri karaa, qaybta kale wuxuu diri karaa markii alaabta qofka supplierku soo diro qofkii customerka alaabta meesha uu rabay loo geeyo ayuu lacagta kale bixinayaa. marka sidoo kale wuxuu samayn karaa lacagta ayuu diri karaa. labada jeerba qofka lacagta waxaa haynayso Alibaba. trade assurance macnaheedu waa taas. marka suuqa Alibaba ku dhex jirto supplierkaas aad heshiisiin waxaad dhexda ka dhaadhicinaysaa yani ku heshiinaysaan inaad lacagta ku bixinaysa platformka Alibaba. hadduu qofkan ku dhahaaniyo bangigayga igu soo diro bangigaan leeyahay kan bangiga igu soo diro yani si stress la-aan waxaa fiican waad aamini kartaa laakiin waxaa fiican inaad Alibaba gudihiisa aad ugu dirtid. wax kasta ayaa ka imaan kara beri kamaan lacagtaada haduu dhaca ninkaa ma garanaysid waa nin jeenaysa ma garanaysid. laakiin haddii Alibaba lacagtaada ku dirtid Alibaba lacagtaada si kalsooni ku jirta ay kugu haynaysaa. once alaabtaada meesha rabta ay ku tagto Alibaba waxaa leedahay alaabta waan helay lacagta Alibaba qofka supplierka alaabta ayaa siinay. soo markaa haddii aad u baahantihiin muuqaal gooni ah ayaan kasoo diyaarinayaa trade assurance-ga. trade assurance ayaan waxaad inaad tuso supplierkan wuu leeyahay laba meel aad ka fiirin kartaa. kow markaad profilkiisa gashid qaybta kor ayuu ku leeyahay trade assurance waantaas calaamadaas insta oo goldhiga ahaanta waxay u dhexeysaa qaybta sanadka iyo qaybta intervals loo dhexdooda. hoos markaad usoo degtiin waatanaan oo meeshaan ku aragtaan. okay waxaa idin rajeynaa in si fiican ugu adeegin doontaan suuqan Alibaba insha Allah tacaala. waxaa idin leeyahay muuqaalka halkaasaan ku keenaya waa mahadsantiin. subscribe-ka aniga ilmaamin muuqaalkan sidoo kale like siiya insha Allah.